warbaahinta war cusub media waxaa hortaagan xildhibaan baashi muuse oo Soomaalida Norway u dooratay xildhibaan ku jira golaha deegaanka ee Oslo. baashi waxaan jeclaan lahayn su'aalo yar inaan ka weydiino arrimo badan oo ayamahan maaragtay ka jira Oslo oo ay kamid yihiin caruuraha laga qaadanayo Soomaalida. waxaa jirta in dhexdaas ah in waalidiinta saagane la isku keenay meel oo la yiri maaragtay booliiska ayaa warqad ugu dhijiyay guryahooda. kabacdina waxaan maqalnay in aad u caawisay oo waalidiintii la raali geliyay. maxaa arrinkaas noo sheegi kartaa? bismillahi rahmaani rahiim. wareyntii waxaan runtii idinka mahadnaqayaa dadkiin warbaahinta war cusub in waraysigan ay idin la yeelateen maanta. dhammaan daawadayaasha warbaahinta war cusubna salaan qiimo leh ayaan kaga soo jeedinayaa. marka labaad xasan, runtii arrintu waa arrin jirta oo 28 bishii ina soo dhaaftay ayay arrintani dhacday oo runtii way jiraan waalidiin Soomaaliyeed oo reer xaafadda Saagana oo kamid ah 15 xaafadood ee magaalada Oslo in la isugu yeeray iyagoo markaa arrimo ku saabsan dhinaca mustaqbalka carruurta laga hadlayo. marka anigu roolkaygu wuxuu ahaa maadaama bileysku meesha soo galay ayaa anigu waxaan xiriir la sameeyay bileyska dhexe ee magaalada. runtii waana weydiiyay sababta ay ku dhacday in iyada oo waalidiin Soomaaliya ama waalidiin caadiya la siinayo warbixin ku saabsan mustaqbalka carruurtooda in booliis soo dhex galo ama bileysku soo dhex galo. su'aashaas ayaan dabagal ku sameeyay. waxaan la hadlay waax unit ama unug ka mid ah booliiska oo qaabilsan ajnabiga oo runtii dhaqamada kala duwan si fiican u yaqaana. isla markiiba xiriirkii markaan sameeyayba runtii waxay yiraahdeen arrintaas waxaanu ka bixinaynaa caddayn iyo kolle raali gelin haddii khalad dhacay. marka isla markiiba way sameeyeen oo adigu 2 maalmood kadib ayaa waalidiintii la isugu yeeray waxaana loo sheegay habku khaladku u dhacay ayay bileysku kala hadleen oo runtii marka ay u sharaxeen ay yiraahdeen annagu haddaanu nahay booliiska waxaanu nahay booliiska ayaa dhowr qaybooda. marka xaafad 15 xaafadood ee magaalada Oslo qayb waliba waxay leedahay bileys gaar ah oo lala xiriira oo marka haddii ay mushkilad dhacdo iyo haddii maaragtay mushkilad laga hortagayo labadaba ay isticmaalaan iskuulka isticmaala baanahagaha isticmaali kara waxaa kala duwan ee laamaha dawladda ayaa isticmaali kara booliiska si marka ay u isticmaalaan hab ay uga hortagayaan dhibaato soo socota ama dhibaato taagan. marka habkii loo isticmaalay booliiska runtii hab khaldan ayuu noqday. hase yeeshee iskuulka ayaa arrintan mas'uul ka ahaa. kulanka iskuulka ayaa iska lahaa. marka ninkii bilayska ahaa ee meesha tagay xaafadda qaabilsanaa waalidiintii isugu yeeray waxaan u sheegay isagu inaanu mas'uul arrintan ka ahayn balse loo yeeray in uu waalidiinta waraaqo guryahooda ugu geeyo inuu warbixin siiyo si ay isugu yimaadaan. marka arrintii booliisku sameeyay iyagu waxay dhahaan annagu arrin khaladan maanu samayn laakiin waana loo yeeray. marka dabagalka noocaas ah xasan waan sameeyay. imikana booliiskii runtii wuu fahmay arrintu siday tahay. waalidiintii iyo bilayskina runtii way isheleen warbixin gaarana wuu qabtay waana isfahmeen. marka arrintaas imika way dhamaatay xaggii bilayska. waxyaalaha qaladka ay ku sameeyeen booliiska maxaa kamid ahaa? runtii hadalku qaladka waxa loo qaadan karaa booliisku markii hore isagu wax khalada oo yiri ay xaggooda ay ka wadeen nin bilaysa ayuu ahaayo kaliya oo ka tirsan xaafadda oo ah bilayska xaafadda. ninkaas waxaaban sida wararku marka ay sheegeen wuxuu ka shaqeynaya xaafadda 30 sanadood in ka badan oo wuxuu ahaa xaafadda ayuu qaabilsan yahay. waana nin aad iyo aad xaafadda looga yaqaano oo wanaag badanna xaafadda ka sameeyay sida dadka degan sheegaan. marka runtii waxay ahayd khaladku in qof bilays ah ama nin bilays oo ciidamada bilays ka tirsan intuu warqad qaado warbixin ku qoran tahay oo waalidiinta guryahooda ugu geeyo taasoo khalad ka dhacay. waayo waalidiinta habka fudud ayaa loola dhaqmi lahaa. waxaa loola dhaqmi lahaa warqad baa loo qori lahaa, telefoon baa loo diri lahaa, rectorka iskuulka ama maaragtay maamulaha iskuulka isagoo lugeynaya buu tegi lahaa. marka runtii khaladku halka ay sartu ka qurantay ee aan la iska fahmayn waxa weeye in bilays soconaya uu maaragtay gambaleel ka tuujiyo oo waalidiintii Soomaaliyeed ku yiraahdo warqad baan idin sidaa. markaana naxdin iyo qajin bay ku noqotay. carruurta qaar baa naxday, faamilada qaar baa naxay. dalkeenu xasan saadogtay dadku dagaal bay ka soo baxeen. marka arrinta khaladka ay waxay ahayd khaladka ay dadka Soomaalidu maaragtay waalidiintii Soomaalidu u turjinteen in qofka bilayska ay urid ugu yimaado oo ku soo garaaco oo yiraahdo warqadan hooya. marka hab kale ayuu u gudbin lahaa oo ka duwan habkan. marka runtii taas way arrinta khalad ka dhacayo. booliiskuna runtii arrintiisii way qaateen laakiin mar walba booliisku waxay daacad u yihiin inay fahmaan maaragtay
inay cid isticmaalaysa waxaha dowladda isticmaalaya inay la shaqeeyaan marka khaladku wuxuu ahaa taas khaladkiina booliiska iyo bilayska iyo runtii way iska fahmeen iyo waalidiintu sidaan anigu xogta ku helay marka adiga xildhibaan ahaan maadaama soomaalida ay ku dooratay adiga ayaa ugu wacnaa in maaragtay booliiska iyo waalidiintu markaa isfahmaan ha runtii anigu dee waajib dheeraada kolley markii fariin iga soo gaadhay qaar ka mida waalidiinta arrintusana u dhacday dad badanna da way galeen arrintii siyaabo badan baa looga hadlay marka runtii aniga go-aankan qaatay baa ahaa bal inaan bilayskii la xidhiidho oo markaa aan bilayska wuxuu ku xidhay wasaaradda cadaaladda si toosa runtii wasaaradda cadaaladda taliyaal ka mida baan la hadlay markaa bilayska la hadal baa la yidhi bilayskana waxaan la hadlay markaa unugga gaarka ah ee bilayska ah ee ajnabiga qaarkiisan oo iyagu takhasus sameeyey oo qaar soomaaliya tegay baa ku jira oo dhaqanka soomaalida runtii yaqaana waad moodo xitaa inay af soomaaliga fahmaan marka way ka dabdabacsan yihiin way ka sahlan yihiin way ka sahlan yihiin inay dadka la dhaqmaan marka runtii waxaan ka codsaday in la fahmo shacabka soomaaliga ee halkan dadka soomaaliyeed degan in la fahmo inay dagaal ka yimaadeen inay soo barakaceen in booliisku aanu ahayn saaxiibkooda koobaad ee dhibaato badan uu booliisku soo mariyey markaa in aan lagu soo degdegin booliiska lasoo dirin waalidiinta maaragtay hab kale loogu gudbiyo markaa runtii way fahmeen waxayna yidhahdeen marka arrintaa warbixinta aanu bixinayna waxay noqonaysaa in aanu maaragtay dee raaligeli bixino oo sheegno annagu ujeeddadaanu lahayn iyo arrintusay u dhacday inay laba kala duwan yihiin marka waxaan rajaynayaa insha allah sidii dee ayay ballan qaadeen iyagu in aanay arrintani dib u dhici doonin oo mar labaad arrin noocan oo kale aanay dhici doonin lana isticmaali doonin booliiska in uu maaragtay arrin yar oo aan dee qiimo lahayn inuu warqad soo qaado oo dabeedna booliiska ku garaaco waalidiin soomaaliyeed iyo kuwa kalaba baashi adiga maxaad u samaysay arrinkaas maxaad maaragtay uga dhiidhisay maaragtay welwelka waalidiinta soomaaliyeed qabeen maxaa ku qasbay in booliiska aad wacdo oo u sheegto waxyaalaha ay ku qaldan yihiin runtii waxaa igu kallifay maadaama aan ahay anigu xildhibaan soomaaliyeed oo laga doortay golaha deegaanka ee magaaladan oslo waxaan markaa xildhibaan oo ahay 650,000 oo qof oo imika degan magaaladan oslo gaar ahaan waxaan xildhibaan ugu ahay si gaara dadka soomaaliyeed marka waxaan dareemay inuu saaran yahay waajibkaas oo ah in aan isfahansiiyo bulshada soomaaliyeed iyo maamulka dalka gaar ahaan bilayska oo kale ama ciidamada bilayska ha noqdeen ama iskuullada ha noqdeen iyo wixii layga baahdo marka anigu waxaan soo arkaa inaan ahay bariishkii ama buundadii isku xidhaysay maaragtay mujtamacan aynu degannahay iyo dadka soomaaliyeed marka runtii waajib isaaran ayaan u dareemay marka waxaan dee runtii u arkay inaan anigu xil waajib isaaran inaan gudanayo ayaan u arkay marka aan hawsha fulinay su-aal u dambaysa aan jeclaan inaan ku weydiino dadkii ku doortay maxaad ii lehed wallahi waxaan odhan lahaa iminka waxaa laga soo wareegay baan u malaynayaa 2 sannadood oo dhow 2 sannadood ayaa soo dhow marka ugu horreysa salaan qiimo leh ayaan halkan uga soo jeedinayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee gaar ahaan reer norway gaar ahaan magaaladan oslo kuwii doortay iyo kuwii aanay dooranba waxaan salaan qiimo leh ayaan usoo gudbinayaa waxaana leeyahay runtii insha allah waxaan noqon doonaa mid danihiina u taagan wax alla wixii la qabanayo maaragtay lagu difaacayo dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inagoo markaa difaaceen uu noqonayo in aynu ka mid nahay inaynu nahay qayb ka mid ah dalka norway idinkuna runtii aqoontii iyo maskaxdiiba idinkoo leh waxaan ku talinayaa runtii arrintan maanta baanabaanaha ama carruurta oo ah arrin runtii xasaasi oo inala soo daristay walaalayaal in loo wajaho si degan in aanay noqonin in aynu yaacno ama qaxno laakiin arrintani waa arrin runtii anigu waan dadaalayaa insha allah qof waliba wuu dadaalayaa waajib baa ina saaran kow inaynu sharciga adeegsano looyaro waxaan la xidhiidhno masaajidka dad badan baa la xidhiidhay runtii in lala xidhiidho qof waliba inuu sharciga adeegsado marka loo yimaado uu raaco qawaaniinta la xidhiidho maaragtay dad luqadda garanaya isla markaa anigu waxaan aad iyo aad uga soo horjeedaa in aynu dalkan ka yaacno oo aynu ka dhoofno oo aynu iska soconno aynu ka tagno unin maaragtay aynu iska soconno laakiin waxaan arkaa in la waajaho si geesinima sidii dhaqanka soomaalidu ahaan jiray geesinimadu waxa weeye marka dhibaatada la waajaho sharcigii dalka ka jiray la adeegsado intaasi ay tahay mid aad iyo aad u muhiima waxaan runtii mar labaad anigoo ka murugaysan aan halkan maaragtay kala qaybsanayaa dareenkayga walaalnimo dadka soomaaliyeed hooyooyinka iyo aabayaasha soomaaliyeed waalidiinta soomaaliyeed ee carruurtoodii maanta ay ka maqan yihiin ee laga qaatay
ayaan runtii anigoo dareenkayga la qaybsanaya kana murugaysan ayaan waxaan leeyahay walaalayaal dadaala waxaan idin rajaynaya ilaahay subxaanahu watacaala inuu dee idinku bedelo cawil khayr qaba inuu idin siiyo maaha micnuu inay idinka tagaan aan idin soo noqonayn laakiin ay tahay maaragtay xanuunka idin haya inuu ilaahay idinka fududeeyo dadaal badan inaydu samaysaan inay ogaataan in shacabka soomaaliyeed iyo shacabka muslimiinta iyo shacabka norwayba ay idin garab taagan yihiin iyadoo markaa la adeegsanayo sharciga dhaqanka wanaagsan intaba dadkana maaragtay carruurtana xidhiir wacan lala yeesho la dadaalo la iskuna duubnaado ayaan runtii ku talin lahaa anigu